Assalaamu calaykum. Hogaaminta iyo sifooyinka ay leedahay. Waa maxay xariga isku xiraya hogaamiyaha iyo dadka uu hogaaminayo? Waa mowduuca muuqaalka. Ku soo dhawow channelka Cilmi Baashe. Marka hore aan micnayno waxay tahay hogaaminta, annagoo sal ooga dhigayna fikradda aan ka haysano hogaaminta. Ka hor intaanan u gudbin 4 hab oo maanta lagu qeexo hogaaminta oo adduunka oo idil ka midaysan yihiin. Hogaamintu waa hab aad saameyn ku yeelanayso dadka dadaalkooda ku saabsan natiijooyinka gaaritaanka himilooyin gaar ah. Waa sida aan ku qeexi lahaa xaggayga aniga. Xariga isku xiraya hogaamiyaha iyo dadka uu hogaaminayo markay noqoto hay'adaha dawliga ah ama maamul, waa himilooyinka dadka ay ku taamayaan inay ka rumeeyaan, sida ammaan la isku halayn karo, waxbarasho tayeysan oo free ah ama qiimo jaban, adeeg caafimaad, ilaalinta shuruucda wax kasta oo lagu heshiiyo, iyo waxyaabo kale. Haddii marka xarigan kala go'o oo himilooyinkii dadku ku taamayeen inay gaaraan la waayo, waxaa imaanaysa in hogaamintii ay baxdo, kadibna qalalaaso iyo muran uu ka dhex dhasho hogaamiyaha iyo shacabka. Waxaa jira 4 hab oo la isticmaalo marka la qeexayo hogaamin bulsho. Hoggaanku waa awood u lahaanshaha in dadku qabtaan ujeedooyinkooda si wada jir ah. Hoggaanku waa inaad saameyn ku leedahay habdhaqanka qofka si aad uga dhaadhiciso waxa dantooda ku jirto. Hoggaanku waa awood u lahaanshaha dad kale inay sameeyaan waxa ay rabaan inay sameeyaan iyo inay jecel yihiin waxaas. Hoggaanku waa karti u lahaanshaha ka dhaadhicinta bulsho ama maamul inay wax qabtaan si kalsooni ah oo qiiro ku jirto. 4tan qeexid waxaa ku lamaan micno aad u badan oo u baahan in la dhuuxo micnahooda. Sifooyinka hogaaminta. Hogaamintu waa inay tahay hab aad ku saameyso dadka. Waa inay la xiriirtaa xaaladda markaas taagan. Waa ficil ka mid ah kicinta ama xalinta. Wuxuu bixiyaa waayo aragnimo ah inuu ka caawiyo helitaanka ujeedooyin guud. Waa in bulshadu ku qanacdo talooyinka hogaamiyaha. Markaad rabto inuu qofku matalo ama ku hogaamiyo, ma ahan inaad tihiin isku hayb ama isku beel. Waxa kaliya ee aad ku raaci karto hoggaanka qof waa ma isiin karaa baahida aasaasiga ah ee aniga iyo carruurtayda aan u baahannahay. Intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. Aad ayaad u mahadsantahay. Fadlan sii gudbi channelkana subscribe deh.